saaxiibada qaaliga ah ee aan isku xirannahayow ku soo dhawaada qaybtii labaad sheekadii xiisaha badnayd ee laba isla waayay. xalqadii hore waxaanu ku soo marnay in aadan loo diiday gabadhii uu doontay laguna xiray inuu ku guursado lacag dhan $20,000 isaguna uusan haysan waxaas oo lacag ah. sidaas darteed uu go'aansaday inuu iska daayo ama inuu gabadha la dhunto ama in ihtimaalo iyo waxyaabo suurtoobi kara inuu ku dhaqaaqi doono ayaan isweydiinay. waa tahay habeenka xigay ayuu wacay Kaamil isbariidin kadib waxa uu bilaabay inuu uga sheekeeyo wixii dhacay, balse waxay ugu jawaabtay aabba iyo hooyo waxay ii sheegeen in aadan yahay nin doonaya inuu si bilaash ah inuu kugu helo ayuu doonayaa ayay igu yiraahdeen bay tiri. Kaamilay qof qaali ah oo qiimo badan ayaa tahay oo aan u qalmin bay dhaheen aadan. waxa uu weydiiyay ra'yigeeda waxay igu jawaabtay wixii aad inoogu taliso ayaan qaadanayaa. waxa uu ku yiri Kaamilay haddii qoyskiina aad iga soo goodid oo aabe iyo hooyo aad aniga iga dooratid aniga ay dooratid waxaa dhici karta in inkaartooda ku haleesho, sidaas darteed aan iska sabarno. way ka diiday, balse iyada oo ka xun ayuu ku qanciyay in ay iska ilaawaan jacaylkii iyo midowgii iyo aqalgalkii ay ku tashanayeen iyo gurigii ay rabeen in ay yagleelaan. aadan ma jecla inuu guryaha daaqada ka galo ee waxa uu jecel yahay inuu albaabka ka galo, waana sababta uu diiday inay isku dhuntaan Kaamil. aadan waxa ku dhacay walwal iyo walbahaar joogto ah. waxa u shidan heestii ahayd alla waayay walbahaarayay igu wiirsay caashaqu yaan ka weheshada. habeena badan ayuu hoos ka ooyay, ilintiisu daadsanayd gogashii uu ku jiifay, cuntadii uu ka go'ay noqdayna qof gaajo iyo haraad la dhanqalmay. waxa kaliya ee loogu diiday gabadhii uu dumar ka calmaday waa lacag darteed. haddii uu ahaan lahaa maalqabeen waxa helay kuma heleen ayuu naftiisa kula haasaaway. wadanku ma ahan wadan ganacsi iyo shaqo looga hodmi karo oo wuu og yahay. laba nin ayaana ka macaasha ganacsatada waaweyn ee shatiyada ilaha ganacsiga iyagu dawladdu u xirtay iyo siyaasiyiin maalkii dadka liqay wixii ka soo harayna luqmadoodu ciriiri ku jirto. dhanka kale Kaamil murugo ayaysan muddo usbuuc ah guriga uga soo bixin oo waaba ay xanuunsatay. dadku se garanayaan in aadan dartii ay u jiran tahay. waalidka dhalay ma dareemi karaan waxa ay inantoodu dareemayso, kaliya waxa iyaga muhiim u ah waxay iyagu dareemayaan. maalin ka mid ah maalmaha ayay wacday aadan waxayna ku tiri xiriirkeena ha goynin, xitaa haddii aadan i guursanayn waan ku jeclahay. isaguna waxa uu ku waaniyay adkayso oo sabar, ilaahayna uga rajeeyay badal ka wanaagsan isaga inuu siiyo. muddo kadib Saadaq ayay dib isugu soo laabteen Kaamil. Saadaq waa nin dhalinyaro ah, waxa uu dhigtaa dugsiga sare, waa isku godo isaga iyo Kaamil. hooyadiis waxay gadaaqaadka, aabihiisna waa dareewal oo magaalooyinka ayuu isaga u kala baxaa. waa wiil lagu jaan qaaday hablaha oo dumar wad badan, tii uu bartaba waxa uu jecel yahay inuu iskala tunto. Kaamilna waxay ka mid ahayd gabdhihii uu soo jarabaray. dhanka Kaamil iyadu nafteediiba way nacday, waxayna go'aansatay inay siday doonto u dhaqanto, waxay doontana fasho. iskoolkii ay dhiganaysay way isaga hartay, waxayna bilowday inay xaafad joog iska noqoto. habeenkii ay fursad heshana waxay u dhuuman jirtay niman shukaansi iyo wareeg. habeen ay Saadaq kulmeen, waxa uuna ku ballamiyay meel jardiime ah. halkii ayay ku sheekaysteen, waxa uuna ka codsaday inay ismeher xadaan. iyadiina way ka aqbashay oo miyay diidaysaa sootay isu dhiibaysay weliba si xaaraan ah. hadda waaba uu xalaalaysanayaaye. galab Talaado ah ayuu Saadaq soo kiraystay gaari marketo ah. laba markhaati iyo wadaadna waxa uu ka soo watay xerta masaajidka jaamaca. waxayna galeen masaafo meel magaaladooda u jirta 120 kilomitir. ayna gabadhii ku soo meheriyeen, sidii ayuuna ku soo celiyay iyada oo aan la ogaan. lacagta uu Saadaq ku kharash gareeyay gaariga waa lacag uu hooyadiis ka soo xaday, dhanna $150 oo ay santuuq ku qarsatay. dhanka kale aadan waxa uu la joogaa nin ay saaxiibo ahaayeen, waxa uuna kula taliyay inuu isagu gabadh uu adeer u yahay siin doono haddii uu diyaar yahay. aadan ayaa yiri bal waan ka soo tashanayaaye habeenka jimcadu soo galayso ha inoo ahaato.
أحمد waa ganacsade bakhaar kabaha jumlada ah keen ayuu magaalada ku leeyahay da ahaan 15 sano ku dhawaad waa ka wan yahay aadan da'diisu waa 45 sano xagga aadan da'diisu tahay 30 jir sababta uu gabadhan uu adeerka u yahay ula jeclaadayna waa inuu aadan ku yaqaan afgaabni idaab akhlaaq intaba maadaama uu aad uga helay dabeecadiisa ulana muuqdan lagu halayn karo gabadhaas agoonta ah ee aabaheed ka dhintay sidoo kalena uu doonayo inuu gabadha uu siiyo nin mustaqbal fiican leh iyadana si fiican u dhaqan kara waxa cajiib ah oo la yaab ah marka Shaafici aadan u arkayo niman gabadhiisa lagu aamini karin maadaama uu faqiir yahay Axmedna uu arko aadan nin gabadha uu adeerka u yahay lagu aamini karo si kastaba faqiir ha u ahaadee bal adigu arintaas cajiibka ah ka waran taasina waxay ku tusinaysaa dadku siday u kala aragti duwan yihiin Axmed Suurad waa nin iska caadi ah deeqsi ah dadnimo leh indheer garad ah fahmi kara dadka وانا sababta uu yahay nin la aaminay oo magaalada sumcad fiican ku leh aadan waxay isku barteen iskuulka uu ka shaqeeyo ee waasuge iskuulka ayaa waxa dhigta caruur uu dhalay Axmed barana uu yahay aadan ilaa muddo 7 sano ah ay isgaranayeen waxa la gaaray habeenkii jimcada Axmed iyo aadanna waxay ku kulmeen meel meherada oo shaah laga cabo hadii ay is wareysteen shaah dalbadeen oo cabeen sharaabeen Axmed ayaa yiri jawaab ayaan ka sugayay ee ma soo tashatay go'aankaaga in maqashii aadanow aadan ayaa ugu jawaabay Axmed oo gabadhaada ugu sharaftay saddex arimoodba waan kaaga aqbalay saaxiibkay baa tahay tan koowaad oo kaama qarinayee tan koowaad haddaan kuu sheego waxaan ahay nin ay maanta u buuxsantay 30 sano intaana guur la'aan ku joogay intaasna raadinayay gabadhii u guursan lahaa ama uu dumarka calman lahaa aysan u suuroobin hal gabarna ha ahaatee tii aan ka calmaday dumarna sida dadban waa tii la iigu diiday wixii inta ka dambeeyayna ay adag tahayba in aan raadiyo oo aan dumarka kala doorto oo mid kala soo baxo energy inta la egna uma hayo taasi waa mid aan kaaga aqbalay tan labaad aan gabadha aad ii doortay ee aad ila jeclaatay aan kaaga aqbalayna waxa ila tahay in ay tahay gabar fiican oo aan fici doonta saaxiibkay baa tahayo wax fiican ila dooni maysid taasna waan kaaga aqbalay midda saddexaad ee aan kaaga aqbalayna waxa tahay saaxiibkay qaaliyo waad ii sharaftay ana waan ka gudoomay sharaftii aad isiisay ee Axmed waxaad ii sheegtaa gabadhaasi xagee ay joogtaa Axmed ayaa ugu jawaabay waxay ku nooshahay Mareykanka oo iyada oo yar ayaa xagga hooyadeed geysay aabaheedna waxa uu ku dhintay Koonfur Afrika oo waxa uu ahaa wadaad daaci ah oo diinta faafiya iyaduna waa gabadh dhowrsoon oo akhlaaq badan kana soo baxday guri diineed wax baratay oo waa aqoon yahanad intaan ka aqaanana waa baariyad oo fasax ay Soomaaliya yimaadaan anigana mas'uul ka aho guurkeeda iyo wareejinteedaba aniga ayaa mas'uul ka ah waan la hadli doonaayo ana kugu soo celin doona aadan ayaa yaab Ilaahay u keenay ma uu garanayo halka qadarta uu wado gabar baa loo diiday mid kale la soo doontay isaguna markan uu ka daalay dumarka raadintooda iyo kala doorashadooda waxa uu diyaar u yahay inuu u guursado gabadhaas uu saaxiibkiis la jeclaaday saaxiibayaal qaybta labaad ee sheekada halka ha inoo joogto waa inoo iyo qaybta dambe ee saddexaad la socosho wacan sheekadii xiisaha badnayd ee laba isla waayay